barnaamijkaanu dhegaystayaal toydin maqashino ahaa kii shanaad barnaamijyadii wax ka sheegayay taariikhda Soomaalida waxaa dhegaystayaal aan ugu dambeyntii idinku maqashinay inqilaabkii ka fashilmay saraakiishii militariga ee reer waqooyiga ahayd bishii December sanadii 1961 oo aan wax ka weydiinay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo Cabdilaahi Kongo. barnaamijkan waxaan haddaba ku bilaabaynaa sidii ay ku dhamaatay dacwadii lagu soo oogay saraakiishaasi. Cabdilaahi Kongo oo saraakiishaasi ka mid ahaa waxa uu noo sheegay in sida tan dacwadu ay ku dhamaatay isagoo ku bilaabaya muuqaalkii maxkamadda. maxkamaddu waxay ahayd horta waxaan ku sheegi karaa riwaayad bay ahayd. waqtigaana laba sharci baa waddanka jiray. sharciga Ingiriisku wuxuu jiray xagga waqooyiga, sharciga Talyaaniguna wuxuu jiray xagga koonfurta. sharci Soomaaliyeed oo labada isku daray ma jirin. labada sharci mid waliba wuxuu leeyahay jurisdiction. xad buu yu gaari karaa, xukunkiisu gaari karaa. waata marka bani aadam waa inaan lagala bixin. shakliga kale ee maartay foormaha maxkamaddu ahaydna waxay qaadigu wuxuu ahaa Ingiriis, dacwad ku ooguhu wuxuu ahaa Talyaani. nimankana daafacayay Hindi bay ahaayeen. luqada meesha socotay anagu aan ku hadlaynaa Soomaali bay ahayd. marka bal adigu maxkamadda mahzalada inta maxkamad laga hadlay adigu bal imaajin garee. maxkamadduna runtu waxay ahayd fadaaxad bay u ahayd nidaamka siyaasiga. markii way nagu heli kari laayeen hadday mutiny nagu qaadaan. waa mutiny hadday idinku qaado way idinku heli laayeen. waa nagu heli laayeen. waata laakiin waxay yiraahdeen maximumka la beegsada oo dilisa. annaguna markaa waxaanu isku daafacnay. waxaanu cadaynay horta waxaan la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya inaan sharciba ku dhisnay inaan jirinba. ayaa ku doodayseen. yaanu ku doodnay. waxaanaanu nidhi challenge gareynay xukuumadda bal inay keento wixii la isku raacay sharcigii lagu mudoobay. لأنه لبا act of union baa jiray saad u ogtahay waddanka oo draft of act of union ah. labadii act of union ciidama kama hadal. ta kale waxay nala beegsadeen article-ka 121 baa la yiraahdaa oo Indian Penal Code ah. waa dil constitution-kii waddanka markaa lagu dhaqayayna court martial ma ogola ilaa waqti dagaal mooyaane. marka dee constitution-kii iyo Indian Penal Code-kii baa la yidhi iyama sareey iyama labada leh afdaliyad way iswaafaqi waayeen. keebaa la raacay baa markaa waa in constitution-ka la raacaa. marka sidaaseen uga baxsanay maxkamadda askariga ahayd. waxaana la yidhi case-kii waa laydinku waayey. kaasi wuxuu ahaa Cabdilaahi Aadan Cabdilaahi Kongo. haddaba dhegaystayaal midayntii maamulkii labada gobol ka sako arrinta kale ee dawladdii ugu horeysay ee Jamhuuriyadda Soomaalida hortaale ama hortimi waxay ahayd gobolladii kale ee Soomaalida deganayd ee aan markaasi xorta noqon in la raadiyo. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen aanu mar kale idinku celino oo arrintaasi bal ka warramaya dawladdii ugu horeysay tallaabada ay ka qaadatay. waxaan ku bilaabayaa dastuurka Soomaalida waxaa la geliyay in ay dawlad kastoo Soomaaliya ay khasab ku tahay inay raadiso wadanada maqan in la isku soo daro oo ay uga shaqayso si nabada. siyaasadda dibadda oo dawladda Soomaalida tiirkeeda koowaad wuxuu ahaa in sidii lagu heli lahaa wadanada Soomaalida maqan sidii xuquuqdooda loo heli lahaa ayuu ahaa. marka wax alla wixii meel la isugu yimid oo urur ah oo dibadda waqtigaas oo ay ma jirin. United Nations haddii la ogolaan karay meelihii kale oo la isugu tegay xukuumadda Soomaalidu marna dib ugama dhicin inay ku dhawaaqdo xaqa ay leeyihiin wadanadaas maqan in loo ogolaado codkooda inay dhiibtaan. hadal meel kasta oo forum oo la isugu yimaado oo suuragal ay noqon kartay xukuumadda Soomaalidu aad bay uga dadaashay. waa dibadii gudahana ummadda Soomaalidu sidaasay rumaysnayd. xukuumadda Soomaaliduna aad iyo aad bay mar walbaba ugu dadaalaysay in dadweynaha Soomaalidu ay ku baraarugsanaadaan fikradaas ayaa lagu dadaalayay. inkastoo haddaba dastuurkii Jamhuuriyadda Soomaalida lagu qoray raadinta gobolada maqan ee Soomaaliyeed wadamada arrintaasi ay ku xidhnayd ee Soomaaliya dariska laaha wax kalgacala kuma aanay qabin qadiyada Soomaali weyn. rajada ugu dhaweyd waxay ahayd Jamhuuriyadda Djibouti oo waqtigaasi la oran jiray French Somaliland. hase ahaatee haddii aynu dib ugu noqono sanadkii 1958 abti xisbiga gooliisku uu ka qaaday dadka reer Djibouti waxa ay doorteen inay ku sii xidhnaadaan oo ku sii hoos jiraan maamulkii Faransiiska.
ilaa iyo intii haddaba golaha loo sameeyey deegaankaasi sanadkii 1945 nolosha xagga siyaasadda ee Jabuuti dardar cusub waxaa geliyey markii sanadkii 1957 la doortay golo sharci oo mas'uul ka noqda arrimaha gudaha. doorashadii ugu horeysay ee golahaasi waxaa ku guuleystay xisbigii la oran jiray Union Republic oo isugu jiray Soomaali, Anfar iyo Caraba, waxaana hogaaminayay Allah u naxariistay Maxamuud Xarbi. waxaana la tartamayay urur kaleeto oo hogaaminaya Xasan Guuleed Abtidoon oo isaguna sidaas oo kale qowmiyaduhu ay ku wada jireen. markii haddaba doorashadaas ay dhacday waxaa madaxweynaha looga dhigay jamhuuriyadda Jabuuti sarkaalkii ugu sarreeyay isticmaalka halkaasi ka fadhiyay ku-xigeenna waxaa noqday Maxamuud Xarbi Allah u naxariistay. hase yeeshee doorashadii la qabtay 23 bishii November sanadkii 1958 iyadoo taageero xoog leh uu ka helay dhinaca Faransiiska ayaa waxaa ku guuleystay xisbigu uu hogaaminay Xasan Guuleed Abtidoon oo markii dambe wadanku xornimada u qaatay madaxweyne ka noqday. isaga ayaana markaasi loo doortay inuu ku-xigeen u noqdo wakiilkii Faransiiska halkaasi ka fadhiyay. Maxamuud Xarbi waxa dabeetana uu baxsaday magaalada Qaahira iyadoo ololihiisu ahaa Jabuuti oo ka xorowda Faransiiska. markii dambana 1959 waxa uu tagay magaalada Muqdisho halkaasi oo lagu sameeyay dhaqdhaqaaq Soomaali weyn raadinaya. bishii Oktoobar sanadkii 1960 ayaa Maxamuud Xarbi Allah u naxariistay waxa uu ku dhintay shil dayuuradeed isagoo ku sii jeeda magaalada Muqdisho oo ka soo laabtay booqasho uu ku tagay wadanka Shiinaha iyo wadamadii Yurubta bari. haddii aynu haddaba u baydhno dhinacii NFD sanadkii 1960 waxaa gobolka Soomaalidu uu ahaa ka ugu go'doonsan horumar ahaan ugu liita qaybaha wadanka Kenya. inkasta oo Soomaalidu aanay si toos ah uga qayb qaadanin doorashooyinkii Kenya ka dhacay sanadkii 1957 haddana sanadkii 1959 ruux ayay Soomaalidu u soo magacaabeen si uu ilaaliyo danahooda golihii baarlamaan ee la sameeyey ee la oran jiray Legislative Council. kadib markii la qaaday xayiraadii ururada xagga siyaasadda sanadkii 1960 inkasta oo aan la khafiifin xayiraadihii gaarka ahaa ee saarnaa gobolkaasi haddana Soomaalidu waxa ay taageereen xisbigii la oran jiray NPPP Northern Province People's Party. dowladda Ingiriiska ayaa iyaduna aan mowqifkeeda markaasi cadaynin. waxaa dhacday markaasi in Ethiopia ay bilowday olole ujeedadiisu tahay inay kaga hortagto Soomaali weyn oo dhaqan gasha. istiraatiijiyada Ethiopia adeegsanaysay waxay ahayd in xukuumadda Britain ay ku eedeyso inay Soomaali weyn iyadu ay dhisaso, waxaana ay culays Ingiriiska ku saartay Britain inay cadayso siyaasadeeda dhulka Soomaalida ku saabsan. bishii Juulaay haddaba sanadkii 1960 ayaa Macmillan oo ra'iisul wasaare ka ahaa dalkan Britishka ay la noqotay in arrintaasi sharaxaad uu ka bixiyo. waxaana hadal arrintaasi ku saabsan uu ka jeediyay baarlamaanka dalkan Britishka. waxa hadalkiisu ahaa sida tan: xukuumadda Britishku dhiirigelin iyo taageero midna ma siinin mana siin doonto wixii sheegasho ah ee saameyn ku yeelan karaya xushmadda dhuleed ee French Somaliland, Kenya amaba Ethiopia. waxaa arrintaasi laga hadli karaa ayuu yidhi haddii ay noqoto doonis ka timaada dowladaha iyo dadyowga ay khusayso. waxaa haddaba hadalkaasi loola jeeday dhegaystayaal in lagu qaboojiyo Ethiopia iyo Faransiiska isla markaasna qalbiga loogu dejiyo hogaamiyaashii reer Kenya ee aan Soomaalida ahayn. dhinaca Soomaalidana waxaa hadalkaasi uu qiray in dareenkooda la qadarin doono. sanadkii 1961 doorashooyin ka dhacay wadanka Kenya Soomaalidu waa ay qaatacday. 1622 ruux oo kaliya ayaa isu diiwaan geliyay, waxaana markaasi ay ka baqeen haddii ay codkooda dhiibtaan in loo qaato inay ogolaadeen dhalashadoodu inay Kenyaan tahay. shirkii Kenya haddaba sharciyada loogu sameeyay oo lagu qabtay Lancaster House oo magaalada London ku yaala bishii February sanadkii 1962 wafdi ka yimid NFD waxaa hogaaminayay Allah u naxariistay nin la oran jiray Cabdirashiid Khaliif. waxaana wafdigaasi ay dowladii Britishku ay weydiisteen in ismaamul gooni oo la siiyo NFD inta aan isbedel kale oo xagga sharciga loo sameeynin wadanka Kenya si ay si buuxda ugu biiraan Soomaaliya inta Kenya aan xornimo buuxda la siinin. isla markaasina xuquuqdii ay heleen Somaliland oo boqortooyada Britishku gumaysan jirtay ay helaan. waxaa taasi ka soo horjeeday labadii urur ee Kenya ay lahayd ee la kala oran jiray KANU iyo KALU. shirkaasi London lagu qabtay guddi NFD ay u saartay inay sii daba gasho waxa ka mid ahaa Axmed Cabdi Oogle. waxa Axmed aanu haddaba weydiinay bal inuu nooga warramo shirkaasi waxa gundhigiisu noqday iyo kii ka dambeeyay ee ka dhacay magaalada Rome. arrinkaas sidoo dhacay wuxuu ahaa
لانكاستو أكي حرية كينيا النظام كقوانين كي لو دغيل هلغا ودا هادلي marka wafdi baa ka socday azhabta marka Kenya ka fureedan oo kaanu xisbiga la yiraahdo Jomo Kenyatta madaxda u ah iyo xisbi kaadu la yiraahdo oo ninkan hadda wadanka xukuumay ay ka tirsanayeen marka wafdi ka gooni ah oo Soomaaliya oo la ogolaaday inay shirka ka qayb qaataan waa jireen NFD lagu magacaabay dooda Lancaster dhab ahaan kama aanay qayb qaadanayeen laakiin halkaas ay ku sugayeen oo ma garanaysaa wixii dood ay ka qabeen wadanka xorriyada la gaarsiin lahaa safay aga hadlaan waxaa kale oo joogay wafdi ka socda dawladda Soomaalida oo Maxamed Ibrahim Cigaal oo markaa wasiirka tacliinta oo madax ka yahayna London bay joogeen sidii iyagana wixii ay ku biirin karayaan oo sooda ayagoo ku doodaya NFD inay tahay wadan Soomaali kamid ah waad ka warantay Axmed dhinaca wufuuda ka socota Kenya makaanu hada makaadu haadene labadii xisbiye markaas gobonimada doonayay doodooda iyagu maxay hayday ay ku diidanayeen Soomaalidu mowqifka ay taagneed Soomaalida reer NFD wadan ka tirsan inuu yahay Kenya xuduudada sidii uu isticmaalku u dhigan in loo daayo wixii markii dambe Xayla Salaas uu mariyay oo ayuga oo sharciga ka dhigay marka doodooda waxay ahayd wadanka lama qaybin karayo Soomaalida hadii loo ogolaado inay go'aan qola kasta oo xuduud degan sida Maasai ay ku halqabsan jireen oo qaarna Tanzania degan qaarna Kenya degan ayagana waa go'ayna bay dhahayaan waxaad ka warantaa markii dambe mesela shirkii la isugu yimid magaalada Rome ee wadanka Talyaaniga ee xukuumadda Soomaaliduna markaas ay timi maxay qodobada laga hadlaysay shirkaas sidoo uu dhacay muxuu gundhigiisa noqday shirka wuxuu u dhacay waxay ahayd dawladda Soomaalida iyo Ingiriiska inay ka wada hadlaan ilaa sida aan ku sheegay interestiga Soomaalida ay u leedahay NFD wax qarsoon markaa ma sanahayna way ku doodayeen marka wafdi ma garanaysa dawladda Ingiriiska oo go'aankeeda halka laga sugayo iyo dawladda Soomaalida halka inay ku shiraan iyo ahayd wafdiga Soomaalida marka Dr. Sharmaark oo Prime Minister ahaa madax u ahaa Cabdullah Ciise wuu joogay nin Ali Maxamed Hiraab la yiraahdo wuu joogay Maxamuud Cabdi Caraar nin la yiraahdo marka safaaradii marka cilaaqaadka la kala goosta London ka yimid uu joogay iyo dhowr kale oo safiir qayb ninka la yiraahdo rag badan halka ku garanay badooda waa dhinteen Allah u naxariistay marka dawladda Ingiriiska marka sida la filayay wafdigeedii hoos bay u dhigtay oo nin Peter Thomas la yiraahdo wasiir dawli ah wasaaradda khaarijka yay soo direen meesha ama Lord Hume inuu yimaado laga filayay ama wasiir khaarijiye marka taa qudheeda walwalbay dawladda Soomaalida iyo dadka meesha joogay qudheeda waan jooga Rome marka yay gelisay marka waxa dhibaato ka dhacday wafdi Kenya oo marka daaqili heshay yaa wasaare ka socotay eegana oo Kenya oo hore Soomaalida la hadlayna oo nin James Gichuru la yiraahdo oo wasiirka lacagta marka laga dhigo waa daaqili Tom Mboya rag'aan kan ay tahay marka dawladda Soomaalida way diiday waxay yiraan wax dood oo naga dhaxeeya annaga iyo dawlad Kenya ka dhalan doonta malaha waxaan arin isticmaar bay ahayd Ingiriis baa wadankan adoonsanay ama gumaysanay Kenya sidoo xorriyada u gaarsiinaya xorriyad la mid ah waa inay gaarsiiyaan dadka NFD marka Kenya ma wada hadlayno kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdi Ogle imakana dhageystayaal waxaanu idin maqashinaynaa mid ka mid ah heesihii NFD loo qaad jiray oo fanaaniinta Soomaalidu ay u sameeyeen adduunka dadka loo abuuray way ogsoon yihiin NFD ayaa leh